warka madaxdiisii shirkii baha habar dugaag uga socday caasimada kadafka ee Faraqandooli lagagana wada hadlaya libaaxu dhibka uu ku haya ayaa lagu guuldareysan haba yaraatay wixii ka dhicin sida uu noogu soo warramayo wariyaha halka noo jooga waa Carraba Dheere shirka waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Dhurwaaga Qunuf Qaanife wuxuuna sheegay dagaalka libaaxa lagula jiro inaan si fiican oo daacad loo wada galayno oo la isku hagranhayo sida hadda ka horba dhacday waxaa si kulula cara ku jirta uga jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Haramacadka waa sharax leh wuxuuna yiri waxa Qunuf Qaanif sheegaya waa been iyo barabagaando iyo dacaad iyo waxa loo dul qaadan karin inta wuxuu ku daray Dhurwaaga inuu ka caada dhigtay baha habar dugaag inuu barabagaamo taasoo sababtay markii u dambeysay shirka inuu burburo oo salka lagu kala dhawaandhawdo madaxweynaha libaaxa oo la yiraahdo indha gaale reen weyna lagu naariso ayaa koongareeskiisa shir degdeg ah isugu yeeray shirkaasan wax waro fiican laga hayna saxaafadana loo diiday albaabadana u xidhan yihiin waxa lagu wadaa inuu jawaab u yahay shirkii Faraqandooli ka dhacay wuxuuna soo qaatay safaaradii habar dugaag ka joogay oo idil waxaa heegan iyo diyaar garow nooc u dambeeyay la galay ciidamada shabeelka maadaama libaaxa xad la leeyihiin mar la wareystay wasiirka gaashaandhigga ee shabeelka waa Faragaaba oo libaaxadu idin ku soo duula maxaad ka tari kartaan wuxuu ku jawaabay libaax wadankanaga hadduu soo weeraro bariis bisil ugu imanas mahayo taasoo loo qaatay inuu ka wado afarta adan iyo ilkahaba waanu ku dagaalamaynaa war degdeg ah haddana soo gaarayna wuxuu sheegayaa baha habar dugaag inay qeyladaan u dirsadeen maroodiga oo yiraahdeen libaax baan soo weeraraya maroodiga iyo libaaxan xidhirkoodu baryahan fiicnaa waxa laga yaabaa in maroodigu fiito adeegsado libaaxa oo calolugay iyo jacin midna lagu aqoonin oo agtiisa cid qori ka jabanaynin waxa loo maleynayaa inuu u joojinaynin sida uu noogu soo warramayo wariyaha halka noo jooga waa Carraba Dheere waxa laga cabsi qabaa dagaalka saddexaad ee habar dugaag inuu bilowdo taasoo adduunka loo yaabo waxaa maxkamadda caalamiga laga dacweeyay bisada iyo galeerka kuwaas oo loo haysto jiirka iyo shimbiraha leen jireen sidii adduunkaba loo abuuray maxkamadaas oo geeduhu kala fiican qaydar hoostu ku taala qansaxana ku oodan yahay garsooraheedu inay wareeriye ayaa labada maxbuus la geeyay abukaataha labada maxbuus difaacayo la yiraahdo kadare iyo waxa la sheegay wareeriye inay isku dhaceen waxaana arrinkii loo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud oo la yiraahdo Kamareeye aan halka idinku celiyo abukaataha labada maxbuus difaacayo oo la yiraahdo kadare iyo waxa la sheegay wareeriye inay isku dhaceen waxaana arrintii lagu wareejiyay xeer ilaaliyaha guud oo la yiraahdo Kamareeye waxaana laga filanhayaa waxa magaciisu cadeynhayo mar la wareystay madaxweynaha jiirka waa ilka juxure ee la yiri bisadu intay idinka dishay ma la yaqaana wuxuu sheegay in la garanayno oo tiradooda la aqoon wuxuu ka magac dhabay 60 ugu caansanayd kuwaas oo ka mid yihiin laba yaqaan lagama si yaqaan Afrikaan Beebels Muqotin allay baday ana way ka wada luqun dhargawaa udub xujo refe dhowr tiide balaash hayte jidxun qafal marjac xakamariwaan lilamood haydagin gabgable gartaciishay kala tuurug banaaweerixiya gabdhabe iyo maciid macifriid calikatiin cawaala bustaale digdig la faataa dhugla habarta ku raysay xile irmaanees faranabal afni jarsila kamarooyaan qorshe xuma qaaraandiid qasdi baase tirabuuxs amri dulle rajo ku nool ishii la kasiya ana wayka warkii ood kala socoteen meel aan la garanayna anoo lay aqoonin aan akhriyahay haddaad dhageysanaysaan haddii kaleba halka ha joogo